habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay aqoonsadaan halista argagixisada ayna wax ka qabtaan arrimaha horseedi kara warbixin ayaanu idinkaga haynaa shirka ka hortagga argagixisada ee ka socda Nairobi qodobada kale caawan waxa ka mid ah maxkamad military oo ku taala Soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku fulisay 3 nin oo ku lug lahaa weerar argagixiso oo ka dhacay Muqdisho 2 sano ka hor. Shirweynaha xorriyadda saxaafadda ayaa maanta London ka furmay iyadoo diiradda lagu saaray dhibaatada haysata suxufiyiinta. Herdanka loogu jiro hanashada koobka qaramada Afrika ayaa maraya meel xasaasi ah warbixin iyo waxaanu idinkaga haynaa wararkii ugu dambeeyay. kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa shir 2 maalmood soconaya oo dalka Kenya iyo qaramada midoobay isla soo qaban qaabiyeen oo magaalada Nairobi ka bilowday maanta xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku sugan Nairobi isagoo ka qayb qaadanaya shirkaasi oo lagula dagaalamayo argagixisada qaaradda Afrika oo qaramada midoobay markii ugu horeysay ay soo qaban qaabisay haddaba isagoo shirka ka hadlayay ayaa xogayaha guud waxa uu farta ku fiiqay dhibaatada dawladaha iyo waliba xadgudubka xuquuqda bini'aadamka hoggaan xumida iyo waliba ballamaha oo aan la oofin in waxaasi oo dhan ay gacan ka geysan karaan xagjirnimada Mr Guterres waxa uu ku booriyay dalalka xubnaha ka qaramada midoobay in ay aqoonsadaan ayna sidoo kale si wada jir ah wax uga qabtaan arrimaha horseedaya argagixisada waxa la gaaray waqtiga ay beesha caalamku u istaagi lahayd oo ay samayn lahayd maalgelinta iyo hanaanka loo baahan yahay si loo taageero dadaalada Afrika ay uga hortagayso argagixisada iyagoo sidoo kalena ixtiraamaya xuquuqda bani'aadamka qaanuunka qaramada midoobina waxa ka go'an in ay si buuxda idin la shaqayn doonto si aad ula tacaashaan halista si korreysay ee argagixisada iyo inay idinka caawiso sidii ay Afrika u heli lahayd mustaqbal uu amni ku dheehan yahay oo horumar leh taas oo ah arrin dadka Afrika oo dhami ay xaq u leeyihiin dhinaca kale waxaa shirka isna ka hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo sheegay in dalkiisu uu markaasi ama dawladdiisu ay sanadihii ugu dambeeyay ay ka shaqaynaysay ama ay samaynaysay buu yiri barnaamij iyo siyaasado looga hortago argagixisada iyadoo si hoose markaasi ula shaqaynaysay ururada bulshada waxaana uu ku tilmaamay ururada Boko Haram iyo Al-Shabaab inay yihiin kansar faafaya oo qaaradda Afrika ay tahay inay u istaagaan wax ka qabadkooda Groups like Al-Shabaab and Boko Haram have started showing ururada sida Al-Shabaab iyo Boko Haram waxay cadeeyeen inay yihiin kansar ka soo bilowday hal gobol ama hal wadan oo saameyn ba'an ku yeelanaya wadankaasi iyo kuwa dariska la ah across not just that country but neighboring ones within the region. Given this tendency for terror groups to spread marka aad eegto sida ururadan argagixiso u faafaan siyaabo kala duwan ayay u dhaafaan xuduudaha ujeedadooda cadna waa cadaadiska iyo dhibaataynta qaaradda oo dhan ma jiro qaran Afrikaan oo ka gaabin kara gabi ahaan waxay noo wada arkaan bartilmaameed and we are all targets in the sight of terror groups. haddaba shirka oo maalinta berri ah la soo gabagabayn doono waxa hoggaanka shirka qaban doono dhalinyarada waxaana ay ka hadli doonaan sida ay dawladaha iyo iyaguba ay u wada shaqayn karaan in ay wax ka qabtaan ururada argagixisada ee si balaaranaya haddaba waxaa qadka si toos ah ugu jira magaalada Nairobi Cabdinaasir aadan oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo shirka qayb galaya Cabdinaasir soo dhawow habeen wanaagsan marka ugu horeysa muxuu ahmiyada oo shirkani uu leeyahay walaal waad mahadsan tahay ahmiyadu shirkani leeyahay waa arin muhiim ah maxaa yeelay waa shir maaragtay uu ka qayb galayo Antonio Guterres oo maaragtay xubin ka ah UN-ka maaragtay marka waa arin muhiim ah maxaa yeelay sidaan ognahay wadamada maaragtay qaaradda Afrika gaar ahaan East Africa ama Geeska Africa waxay in badan ay la tacaabeen waxay in badan dhibaato kala kulmayeen maaragtay arrimaha argagixisada
marka waa arrin muhiim ah oo wadamada maaragtay geeska Afrika isku keena iyo Afrika idil oo arrin maaragtay diirada la saarayo arrimahan argagixisada waa marka berito shir weyn oo maaragtay dhalinta si ay la shaqeyn doonaan maaragtay dawladda jirto marka si ay wax kala qabtaan ay ka hadli doonaan berito insha Allah waan gartay marka beri waxa leedahay dhalinyaradii baa dawladaha iyo sidii la iskula shaqeyn lahaa laakiin xogayaha sida uu sheegay hadalkiisa ku jirto wuxuu leeyahay dawladaha iyaga mararka qaarkood waxyaabaha ay ku kacayaan sababayaba in dhalinyaradii ay u galaan oo dabinka kooxaha xagjirka ay ku dhacaan taas sidee xal loogu heli karaa waa arrin jirto maxaa yeelay hadda wadankan Kenya way ka dhacday in badan maaragtay argagixisadii ka dhaceysay jaamacadda Garissa iyo wixii ka dhacay Nairobi in badan waxay dawladda maaragtay waxay ay dambiga dusha ay ka saareysay Soomaalida ama maaragtay qowmiyada kale wadanka degan marka waa arrin maaragtay run ah maxaa yeelay jirdil iyo maaragtay kufsi ay u geystaan marka waxyaalahaas waa waxyaalaha maaragtay dadka ama shacabka ay ahaadaan ama dhalinta ay maaragtay ay saameyn karto oo maaragtay ayagii dhibaatada markay u imaato waxay isdhihi karaan kulli dawladdiin idima rabto marka waxay ku biirayaan maaragtay argixisada waan gartay Cabdinaasir Kenya kale waa wadan degan oo dhisan laakiin Soomaaliya oo kale oo daris la ah dhibaato fara badan ay ku hayaan kooxahan xagjirka ah sidee baad is leedahay wadan sida u soo kabanaya arrintan way ula tacaali karaan waxba ay uga qaban karaan horta midda ugu horeysa waxa weeye horta wadanka Soomaaliya wadan maaragtay hadda soo kabanayo muhiimka waxa weeye dhalinta maaragtay wadanka joogan intii shaqo abuurin loo sameeyo marka kadib maxkamadda iyo maaragtay dawladda intay isla shaqeeyaan oo maaragtay dhalinta aan maaragtay dib ama gees loo dhigin hadda waxay wadanka Kenya gaar ahaan haddaan ka soo qaadano waxay sameynayaan maaragtay waxay ka soo bilaabeen national government ama waxay ka soo bilaabeen meesha ugu sareyso ilaa maaragtay regionalka ayay dagaalka maaragtay argagixisada ay geeyeen marka waxaan filayaa dawladda Soomaaliya haddii ay taakuleen ama ay ka hesho wadamada kale iyo caalamka waxaan filayaa maaragtay intay la dagaali doonaan laakiin muhiimka waxa weeye dawladda Soomaaliya dhalinta intay shaqo abuurin ay u sameeyaan midii labaad waxaa muhiim ah intay ogaadaan dhalinta intay lafadhabar u noqon karaan maaragtay ka hortagga ama dagaalka argixisada aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir Aadan oo ku sugan magaalada Nairobi bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa meel fagaara ah lagu arkay iyadoo oo gariiraysa markii saddexaad muddo ka yar bil Miss Merkel waxa loo jeeday iyadoo jaraynaysa mar ay la taagnayd ra'iisul wasaaraha Finland Antti Rinne iyagoo oo daawanaya xaflad military oo ka dhacday Berlin shir jaraa'id oo markaa kadib ay qabatay waxay ku adkaystay Miss Merkel in ay caafimaad qabto haweeneyda qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanka dilkii wariyihii Sacuudiga Jamal Khashoggi ayaa waxay ku baaqday in CIA-du ay banaanka soo dhigto xogta sirta ah ee dilkiisa ku saabsaneed waxay sheegtay in baaritaan dambi la bilaabo iyada oo ka hadlaysa London Agnes Callamard waxa ay sheegtay in hadda aanay gacan xoogan ka helin Mareykanka laakiin Turkigana ay tahay inay daabacaan wixii ay og yihiin dowladda Faransiiska ayaa qiratay in 4 gantaal oo kuwa taangiyada ah lagula dagaalo oo laga helay saldhig mucaaradku leeyahay Liibiya ay iibiyeen militarigooda laakiin waxa ay sheegeen in aan laga iibin ama la siinin cid qayb ka ah dagaalka wadanka Liibiya maanta waxa dil toogasho lagu fuliyay 3 dhalinyaro oo la sheegay inay ka tirsanaan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo hore xukun dil ah ay ugu riday maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya sanadkii hore haddaba waxaa xog dheeraad ah oo ku saabsan dilkaasi noo haysa wariyahayaga magaalada Muqdisho ee la sheego raggan oo lagu helay inay qayb ka ahaayeen weerar loo isticmaalay qarax iyo rasaas oo ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Nassar Hablood 2 ee magaalada Muqdisho 28 bishii Oktoobar sanadka 2017 ayaa waxa ku dhintay 18 qof oo iskugu jiray shacab iyo dad mas'uuliyiin ah halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qof raggan ayaa markii la soo qabtay kadib la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana markii ay dacwadooda socotay 22 bishii shanaad ee sanadkii tagay ay ku heshay dambiye ay kamid yihiin kamid ahaanshiyaha urur hubeysan oo ka soo horjeeda qaranka
iyo inay qayb ka ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel Naasa Hablood labo dileena dad rayid ah waxaana lagu xukumay dil 30kii bishii May ee sanadka 2018 weerarka raggan ay geysteen waxa uu dhacay 2 toddobaad kadib qaraxii ugu dhimashada badnaa abid ee Soomaaliya kaasoo ka dhacay isgoyska Soobe oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof ciidanka jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland iyo kuwa uu hogaamiyo Cornel Care ayaa dagaal waxa uu ku dhexmaray dhanka bari ee magaalada Ceerigaabo dagaalkan ayaa sababay mudaharaad magaalada oo dhan ka dhacay Ceerigaabo iyo waliba Burco wariyaha BBC-da Sadiiq Burmad ayaa ka warramaya mudaharadayaasha ayaa taayirro ku gubayay wadooyinka waxa sidoo kale ay ku gooyeen wadooyinka dhagaxaan aan baabuurtu aanay ka gudbi karin ciidanka booliska ayaa lagu soo warramaya inay rasaas ay ku kala eeriyeen dadweynaha waxaana mudaharaadkan uu salka ku hayaa dagaal ku dhex maray ciidanka Somaliland iyo ciidan uu wato Cornel Care meel dhanka bari ka xigta 45 kiiloomitir ee magaalada Ceerigaabo dagaalka laftigiisa waxa la sheegay inuu khasaare jiro oo dhimasho iyo dhaawacba leh walow aan xogta rasmiga ah la helin maadaama labada dhinac midna aanu hadal magaalada Burco laftigeeda ayaa waxa maanta mudaharaad aan leekayn kan Ceerigaabo ayaa isagana ka dhacay ilaa gelinkii dambe turtuuriyooyin baa ka dhacay sa la igu soo warramayo goobjoogayaasha labada dhinacbana ee magaalada Ceerigaabo iyo Burco mudaharadayaashu waxa aan la hadlay sheegeen in arrintan ay salka ku hayso cabasho ay dadku ay ka muujinayaan dagaalkaasi dhex maray ciidanka Somaliland iyo Cornel Care Sadiiq Maxamed Burmad ayuu ahaa wali waxa inoo soo socdo qaybta dambe aad ku daawan doontaan Yusra oo ah gabar yar oo reer Yemen ah oo heshay fursad caafimaad ولو حد داونا سام برنامج كعاوي عالم كا مقعي وفرحان محمد جمعالي أنا حسوسيو قضبة ورقة وجوا وين xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay in ay aqoonsadaan halista argagixisada ayna wax ka qabtaan arrimaha horseedaya maxkamad military oo ku taala Soomaaliya ayaa dil toogasho ku fulisay maanta 3 nin oo ku lug lahaa weerar argagixiso ka dhacay magaalada Muqdisho 2 sano ka hor gacanqaadka iyo xadgudubyada ka dhanka ah warfidiyanada ayaa gaaray heerkii ugu xumaa sanadkan sida waxa sheegtay hay'adda xuquuqda wariyaasha u dooda ee Reporters Without Borders waxay sheegtay hay'addu in suxufiyiinta sabab la'aan loo dilo loona xiro waliba loo afduubo iyaga oo shaqadooda gudanaya Telekom haddaba ay diyaarisay hay'addaasi 2018 ayaa waxa uu muujinayaa baaxadda ay dhibaatadu ay la eg tahay 8 wariye ayaa la dilay iyaga oo shaqadooda ku jira in ka badan 300 oo wariye ayaana xabsi ugu jira dawladihii xiray wariyaashaasi 6 waxa la sheegayaa in la afduubay halka 3 markaasi la la'yahay meel ay ka baxeen Masar ayaa ah haddaba dalka Afrika ugu xariga badan waxaana ku xiran 38 wariye Ahmed Hussein Su'aale oo wariye u dhashay Ghana lana shaqeynaya BBC-da ayaa lagu toogtay meel u dhow gurigiisa haddaba shir caalami ah oo ku saabsan xorriyadda saxaafadda ayaa maanta London ka furmay ujeedka shirkana waxa lagu sheegay sidii loo iftiimin lahaa xorriyadda saxaafadda iyo tacadiyada ka dhanka Cabdiraxmaan Bidaan ayaa ka warramaya waxaa maanta magaalada London ka furmay shirweyne caalami ah
oo ay soo qabanqaabiyeen dowladaha Ingiriiska iyo Canada shirkaasi oo lagu magac daray difaacidda xorriyatul qowlka saxaafadda sida aynu ognahayna saxaafadda dhibaatooyin badan baa meelo badan oo caalamka ka haysta iyadoo imika bariyahana saxaafadda iyadana dadku ka cawdaan dhanka kale oo ay jiraan waxa loo yaqaano fake news ama wararka beenta ah haddaba Soomaaliya waxa uga soo qayb galay shirkan wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cawad maanta ayaan kula kulmay halkan wasiirka oo aan weydiiyey bal Soomaaliya waxa kulankan keentay iyo waxa ay ka filaysaba shirkan waxyaabaha laga faa'iideeyo waxa kamid ah oo ballan qaadaya inuu saxaafadda tababar siiyo maartay xoojiyo investigative journalism sida loo sameeyo baro difaacana marka Soomaaliya ciriiri uga ma jirto saxaafad la caburiyo waxay ciriiri uga jirtaa saxaafad xarga goosatay oo siday rabto u hadasha saasay tahay adduun ummad kama maarmi karto rabta inay horumar gaarto saxaafad xor ah sida daraaddeed dowladda Soomaaliya waxay aad u aaminsan tahay anagoo dhammaan aaminsanahay xorriyad madax bannaan saxaafad madax bannaan oo maaragtay dadka u sheegta xaqaa'iqa jira ma garanaysa dhawaan baarlamaanka Soomaaliya federaalka wasiir waxa uu ansixiyeen xeerka saxaafadda xeerkaasi dad badan baa ka cabanaya waynu ognahay waxa la leeyahay dawladdu xeerkaasi caburin buu keenayaa iyo in saxaafaddu aan xor noqon dhanka kalena wada ogto saxaafadiina waa laga cawdaa iyadana waxa la leeyahay way darjeeday marka maxaad ugu jawaabaysaa dadka xeerkan dhaliilaha u jeedinaya anagu de xeerku waa xeer baarlamaankii gudbiyey baarlamaankuna waa wakiilada sharci dejinta dalka Soomaaliya waxaan saaniya adiga iyo Soomaalida badan ba ogtahay in Soomaaliya aan caburin ka jiri karin kana jirin to the contrary ama bilcagsi Soomaalidu waxay ka mid tahay wadamada la dhihi karo xorriyadda saxaafaddu waxay gaartay xad ay xarig goosatay oo qofku wuxuu rabo uu iska samaynayo ma jirto inta badan waxaa laga dacwoodaa dowlado caburiya saxaafadda marka Soomaaliya laakiin dacwada ugu badan waxay ka jiri kartaa saxaafad iyadoo dadka caburisa haddaan tusaale ku soo qaato madaxda iyo waa la iska caaya iyadoo laga sheego been laga abuuro laga been abuuro dadka Soomaaliyeed waa loo xadgudbaa oo sirtooda iyo waxyaabada privacy-ga ayaa miidiyahu ay iska gudbiyaan aniga shakhsiyan dad baa been iga sameeyaan iska caaya bal markana ciyaarihii koobka qaramada Afrika haddii aynu eegno laba ciyaar ayaa maanta dhacaya laakiin si toos ah aynu u tagno magaalada Qaahira oo qadka uu ku jiro wariyahayaga Maxamed Cabdi Xaraare maxaa ugu dambeeyay Maxamed farxa waa mahadsantahay waxaa maanta bilowday rubac dhamaadkii ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada Afrika waxaa magaaladan iminka waxaa socotay ciyaar dhex maraysa Benin iyo Senegal waxa ay ciyaartaasi ka dhacaysa garoonka 30 June ee ku yaala magaaladan Qaahira wax gool ah wali ciyaartaas lama kala dhalin caawa fiidkiina waxa la dheeli doonaa ciyaar kale oo iyadana dhex mari doonta Nigeria iyo South Africa ciyaartaasi dad fara badan ayaa indhaha ku haya waxa la filayaa inay tahay ciyaar aad u adag farxaan laakiin waxa xusid mudan ciyaarahan koobka qaramada Afrika ee iminka maraya rubac dhamaadkii waxa ka haray kooxda Masar oo iyada dalkeeda koobka lagu qabanayay taasna waxa ay keentay in taageerayaal fara badan oo dalkan ka soo jeeda oo xulka Masar taageersana aanay si toos ah ciyaartii u daawaneen qaarkood xitaa ay doonayaan in lacagtoodii tigidhadii ay hore u iibsadeen loo celiyo warbixintan gaaban ayaan ka sameeyay waa habeenkii sabdiga iyo dariiqyada Qaahira niyad jab iyo lama filaan ayaa laga dheehan karay wajiyada taageerayaasha Masar 13 sano kadib ayay nasiib u heleen in dalkooda lagu qabtay ciyaaraha qaramada Afrika hayeeshee xulka dalkooda ayaa habeenka ku haray isla reebka 16 koox xulka Koonfur Afrika ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta gool iyo waxba ku maqooniye Masar in badan oo kamid ah taageerayaasha Masar waxa ay si kalsooni ah isku siiyeen guusha tartanka iyagoo hore u sii iibsaday tigidhada rubac dhamaadka kuwa semifinalka iyo kuwa finalkaba iminkase waxa ay ku talamayaan inay daawadaan ciyaar aanay natiijadeeda kala jeclayn qiimaha tigidhku waa 500 oo giniga Masar ah qaar badan suuragal uma aha in lacag ay khasaariyaan maadaama qiimaha tigidhku yahay rubuc kamid ah dhaqaalaha dad badan soo gala bishii
I would say if the tickets were a little less waxaan odhan lahaa haddii ay tigidhadu ka jaban yihiin qiimaha iminka yihiin dad badan ayaa soo geli lahaa cayaaraha badankooda meelaha qaarkood way wanaagsanaan sida algeria senegal ivory coast morocco laakiin waxay ku fiicnaan lahayd in qiimuhu jabnaa taageerayaasha qaarkood ee garoomada kubadda way tegayaan laakiin aad ayay uga duwanaan lahayd wixii aynu arki lahayn haddii ay masar ay qayb ka noqoto sideeda kooxood ee u dambeeyey amaba rubuc dhammaadka waxay u muuqataa in xiisaha Masar looga qabo ciyaaraha qaramada Afrika uu sii yaraanayo dadka qaarna waxa ay qabaan in hoos u dhaca ku yimid xulka Masar uu muddo soo jiitamayay أنا بحضر الماتش بوزع وطني waxaan ciyaaraha u daawanayay si wadaniyad ah maxaa yeelay kooxda qaranka ayaan taageero u ahay xitaa haddii aanan jeclaan ciyaartooda waan taageerayaa sababtoo ah waxaan ahay Masri haddii ay taageerayaasha Masar yimaadaan iyo haddii kalaba garoonka caalamiga ah ee Qaahire ee lagu qabanayo ciyaarta kama dambaysta ah ee July 19keeda dhacaysahi waa diyaar Maxamed Xaraare BBC Qaahira farxan sida aad warbixintaas ka dheehan karto waxaa jira dareenka noocaas ayaa ka jira magaalada Qaahire magaalooyin kale ciyaarahan ay ka dhacayaan dad fara badan lacag ayay bixiyeen waxay u bixiyeen inay daawadaan xulka Masar in uu soo gaaro ilaa ugu dambeyntii garoonkan wuxuu qaadaa 75,000 garoonka lagu qaban doono ayaan ka hadlay ciyaarta kama dambaysta ah 19 bisha July waxa uu qaadaa 75,000 oo kursi waxa la isweydiinayaa ciyaaryahanada caanka ah ee ku soo haray hadda tartanka ma awoodi karaan in ay buuxiyaan ama ay iibiyaan tigidhada garoonkaasi lagu buuxin karo farxan waan gartay maxamed laakiin waxa la leeyahay hadda waxbaa ku soo kordhay oo nidaamkan Yurub iyo ciyaarahan laga isticmaalo wadamada reer galbeedka ee VAR ka la yiraahdo dib loo fiirinayo markuu qalad dhaco kamaradii computerkii ayaa hadda lagu soo kordhinayaa taa nooga waran waa sidaad u sheegtay farxan ciyaaraha qaramada Afrika markii ugu horeysay waxa lagu soo kordhinayaa qalabkan casriga ah ee VAR to isagu la bilaabay maanta durbaba waxa ciyaartan iminka socotay ee Senegal iyo Benin gool ayay dhalisay Senegal VAR ta markii la eegay kadibna goolkaasi waa la diiday waxay leeyihiin guddiga qabanqaabada ciyaaraha waxa ay leeyihiin tababar badan ayaa la bixiyay farsamadana waa la casriyay hore ayaa dhaliilo looga muujiyay xiriirkan sida uu VAR ta u isticmaalo farxan waxa xusid mudan in kooxaha sida Tunisia oo kale iyo kooxdan Tunisia iyadu ku soo baxday kadib markii Ghana laga diiday gool ciyaarihii isra reebka 16 marka dad badan waxay rajeynayaan in VAR tan ay wax badan sixi doonto farxan adiga qudhaada meesha joogtaa meeqa tigid ba ku go'an maxamedow farxan anagu tigidhada ma iibsano waxaan shaqada naga bixiso laakiin waxaan daawan doonaa ciyaarta bere dhici doonta ee Algeria waxay dhex maraysaa Cote d'Ivoire ama Ivory Coast oo ka dhici doonta magaalada Suez ciyaartaas ayaan tagi doonaa garoonka warbixintii ugu dambeysay wararka halkaasi aan kala soo kulmana waanu idin la wadaagi doonaa waan gartay maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo si toos ah magaalada Qaahire ciyaaraha koobka qaramada Afrika nooga soo waramayay ilaa iyo dhamaadkana maxamed uu nala joogi doonaa ciyaarahaasi ugu dambeyntiina maxaa ugu wanaagsan haddii aad u dabaaldegi lahayd marka aad gaarto 100 sano Tommy Hudson ayaa waxa uu go'aansaday in uu hawada sare intuu aado halka laga soo sii daayo waxa uu rajaynayaa inuu rikoor cusub oo dunida ah uu dhigo oo uu mar kale ku celiyo 3 sano kadib hadda haweeney Australia u dhalatay 102 jir ayaa haysta rikoorka qofka ugu da'da weyn ee hawada iska soo rida waa tahay inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa laakiin mar walba waxaan idin xasuusinayaa in bogayaga BBC Somali Facebook aad nagala socon kartaan fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyay muuqaalo falanqayn dheeraada iyo waliba wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram sidoo kale shanta barnaamij ee ugu dambeeyay ee caawiya caalamka waxaad kala socon kartaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caawa habeen dambe iyo dooda khamiista ayaa noo ballanaya inta ka horeysa dhammaantiin waxaan idinkaga tagaynaa aniga iyo asxaabta lanaba habeen wanaagsan